بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها دولة بنتلان مدن سعيد عبد الله الدني وهليو مدحوينه كحجين كدولة مدن أحمد علمي عثمان كراش أيام maanta waxa ay kulan qasriga madaxtooyada kula qaateen gudoonka baarlamaanka dawladda Puntland oo hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl oo ay weheliyaan labada gudoomiye ku xigeen ee baarlamaanka iyo hogaanka dhaqanka ee Puntland. kulanka waxa looga hadlay ilaalinta midnimada jiritaanka iyo amniga guud ee Puntland waxaana lagu guuleystay in meesha looga saaro oo guul laga gaaray kala aragti duwanaan dhinaca maamulka iyo shaqada u dhaxaysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka bulshada reer Puntland meel walba joogaanna waxaan ugu baaqaynaa inay ka shaqeeyaan midnimada inay ilaaliyaan amniga oo dawladda ay kala shaqeeyaan in ay maaragtay ay aad uga taxadaraan dadka inta badan isku daya inay ka faa'iideystaan ama ay khalkhal geliyaan amniga iyo jiritaanka iyo midnimada guud ee Puntland. aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa.